kuwa jahan Soomaaliya warkaasi ma runba waa goorman ka hadlaysaa markaan wariyaha miyaa ka hadlaysaa mise markaan siyaasadda soo gasho wariyanimadaadii markaan ku koobno siyaasadda waan aadi doonaa laakiin wariyanimadaadu waxa noqotay geedka albaabka dawladda Qatar marka ay doonayso inay ka ogaato macluumaad kala duwan xaalka Soomaaliya iyadoo ay dawladuhu dhisan yihiin ama ku meel gaar ah ama dawlad joogto haate qofka la xiriiraya inuu fahmo noqdo saameyntaas sidee faad ku keen ani ma aqaan xogtaas meesha ka heshay dawladda Qatar aniga waxaan kala shaqeynayay Al Jazeera ee dawladda Qatar iska leh ayaga maalgelisa hadda kooban diblomaasi weydiiyay waxaan ku iri inta wariysi aan u shaqeeyo masaafada u jiro dawladda Mareykanka baan u jiray dawladda Qatar marka cidaan u shaqeynay Al Jazeera ahayd not dawladda Qatar Al Jazeera dawladda Qatar iska leh hadii CNN ba Mareykan ba iska leh marka qofka CNN u shaqeeyo dawladda Mareykanka u shaqeeya ma waxaan isarag xiisa la daawadayaal ku soo dhawaada Gaylan Media waxaan idin soo gudbinaynaa waraysi iyo xog waran xasaasiya oo xog badan xambaarsan oo aan la yeelanayno shakhsi caadkeed in lala kulmo sanado iyo maalmo ka hor xog waraysigan xasaasiga waxaan ku gorfayn doonaa malafyo waaweyn oo xog badan ay dadka Soomaaliyeed ka hayn balse dhacdooyin dhacay oo ay yihiin kuwa taagan ilaa maantadan la joogo waxaana la jooga oo martino ah Fahad Yaasiin soo dhawo waa dhawahay waan ku faraxsanahay inaan maanta la joogo dadka Soomaaliyeed siyaabo kala duwan marka looga hadlayo waa kuma Fahad Yaasiin hadda meel aan ka bilaabo ma aqaan waa horta waa kan kula jooga haddii laga wado yani taariikhda iyo backgroundka magacaaga waa Fahad maxaa ku raaca aniga waxaa la yidhahdaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaan ku koray qoys diineed inta aanan ka gudbin Fahad Yaasiin dhawaan waxaa la shaaciyay Fahad Axmed Daahir iyo Fahad Yaasiin ma farqiga u dhaxeeya waa maxay labada magacba waa jiraan Fahad Yaasiin uu jira Fahad Axmed Daahir uu jira marka documentigu waa sida Fahad Axmed Daahir ugu qoran laakiin qoys ahaan Fahad Yaasiin baa la yaqaanaa magaca Fahad iyo Yaasiin waa isku hal qof waa magacyo israaca waay oo la wada yaqaan oo hal qof oo Fahad la yiraahdo Yaasiin la yiraahdo ma Soomaalidu dhammaan taqaana magac qoysna waa leeyihiin magac documentiga ugu qoranna waa leeyihiin laba magac la tahay magac saddexaad inuu jiro dhici kartaa markaan yar Cabdiraxmaan baa la dhihi jiray koritaan ahaan waxaan haynaa inaad ku barbaartay gobolka Gado halkaasna aad ku hana qaaday dulmar kooban ku sabay koritaankaaga aniga marka koowaad waxaan dhashay 7-meeyadii bartankeeda ama aakhirkeeda u dhow waxaan ku koray qoys diineed waxaan ahay hooyo koris ayada ay barbaarisay ayada ay korisay wayna nooshahay ilaahay cimrigeeda iyo caafimaadka uu hawsiyeeda iyo labadaba yani waxaad ku kortay agoon kuma korin laakiin waxaan ku koray hooyadayba ay korisay marka way jiraan ilmo hooyo korisay iyo ilmo aabba koriyay aabahay uu noolaa oo caafimaad qabay laakiin duruufo jiray dartood markaasuun hooyo koris baanahay sidii aan Soomaalidu baa taqaanaa in badan oo kamid ah hooyo korisay noloshayda intii aan guuleystay intii aan wax qabtay intii aan wax bartay intii aan noolaa ilaahay ka soo koob qofka aan uga hayo abaalka tarbiyada iyo talada iyo ducada waa hooyaday yaraanteedii baan quraanka bartay waxaan u maleynayaa anoo 10 sano ka yar inaan quraanka xifdiyay markii aan ahaa 13 jir Soomaalidu waxay taqaanaa wax la yiraahdo kabiir baan dugsi quraan ka noqday kabiirnimadaas waxay keentay inaan markii dambe u gudbo inaan macallin quraan noqdo intii aan 16-15 jirayna macallin dugsi quraan baan noqday cimrigayga ugu yaraan 9 sano 11 sano ku dhow waxaan ku mashquulsanaa oo ka shaqeeyay macallin dugsi quraan oo aan dad waaweyn quraan baray dadka hore waxaa la dhihi jiray dugsi hebel buu kiciyay laakiin marka baadiyaha la joogo magaalada marka la joogo dad ba quraan la baraa waa la dhameeyaa dana kuwa kale la baraa yani Fahad waa macallin dugsi quraan waa soo maray noloshii bilowgeedii waxaan ka bilaabay dugsi quraan inaan macallin ka noqdo waxaan aaminsanahay in noloshaydu inay guuleysato ay laba shay asaas u tahay waalidkay oo hooyaday kow ka tahay iyo noloshaydu inay quraan ka soo bilaabatay 9 sano ku dhawaad oo cimrigayga marna isku jir waxaan ahaa imaam masaajid
oo salaada si joogsan salaad tujinay taraawiixdana tujinay sidoo kalena macallin dugsi quraan ah dugsigaas iyo masaajidkaas xagee ku yaala meel kala duwan oo ku yaalay Kenya ku yaalay Soomaaliya ku yaalay xataa markaan jaamacadda dhiganay jaamacadda waxaan ka ahaa macallin quraan waa maasan tahay da'daada koranimo intii aad ku jirtay waxaad u safartay Yaman ma jirtaa Yaman waan ku soo waday waa markii dambe oo aan waxbarashada qaybteedii jaamacadda aaday jaamacad leeyahay jaamacad al-Iimaan ardadii ugu horeysay oo sanadkii labaad markii jaamacadda la aasaasay dhigatay baan ku jiray jaamacadda muddadeedii waa dheeraa ma aanan awoodin inaan dhameysto sanado maxduud ah aan dhigtay oo taas igu kaliftay markii inaan mar dambe maxaad baratay markaa waxaan bartay maado isku dhex jirta waxa la yiraahdo culum insaaniya marka maadooyin shariicada islaamka ah iyo maadooyin taariikhda psychology-ga cilmiga bulshada juqraafiga isku dhex jira waa kulli mana aadan culum insaaniya ma aanan dhameysanin qayb kamid ah aan dhigtay laakiin jaamacad kale mar dambe ka dhameystay kasakow in waxbarashadaadu ay qoys diimeed ka soo jeedo oo sida dadka Soomaalida in badan oo kamid ah ay ogtahay ama siyaabo kala duwan loo wariyo haddana aad sheegtay in qoys diimeed ka soo jeedo Yaman maxaa kale ka soo qaadatay oo dhaafsiisan waxbarashadaas jaamacadda xero baan ka noqday waxyaabo diinta kutubada qaar oo culumaan ka akhristay waxaan xaadiray muxaadarooyin culimo waaweyn oo adduunyada kamid ah sida Sheekh Muqbil Haadi Alwaadici Sheekh Maxamed Xasan Daddo oo hadda caalim weyn oo Mauritania sharaf weyn ay ahayd culimadaas waaweyn inaan arkay ayagoo muxaadareynaya waxaad ahayd xerow salafiya oo culimadii kala duwanaa ee Yemen joogay ee fikirka salafiga islaamiga aaminsanaa ka soo tacadufay fikirka salafiga oo ku koray aniga waxa xataa aan doortay ma aha markaan aqliyeystay hooyaday way xijaabneed Fahad waa wariye inta aanan dhowr su'aalood oo kale aan u gudbin Fahad ma leeyahay xirfad kale wariyanimo xirfadeeda kale waa macallin quraan wariyanimo iyo macallin quraan xirfad kale ma jirto xirfadda saddexaad waa siyaasad hayaanka wariyanimada isaga goorma soo bilowday waxaan ku galay waxaan la yiraahdo afka carabiga lagu dhaho hiwaaya dookh inaan jeceshahay 1996 95 aakhirkiisii baan bilaabay artikalo qoraalo yaryar inaan qoro labadii kun markii la soo gaarayna waxaan bilaabay inaan Somali Talk website la yiraahdo aan ka mid noqdo dadka wax ku qori jiray muddo 6 sano ku dhawna editor baan ka noqday website-da Soomaalida kuwa ugu horeeyay ugu saameynta badnaa buu ahaa cases fara badan difaacay oo sabab u noqday inay Soomaalidu ku baraarugto ay ka mid tahay case-kii badda article joogta baan ku qori jiray oo isniinlaha Fahad iyo isniinta la dhihi jiray oo siyaasadda ku faaleyn jiray ka bacdi waxaan noqday waxa la yiraahdo freelancer wariye xor ah oo aanu noqday BBC-da Carabiga television al-caalam la yiraahdo ilaa hadda jiro Iran ka shaqeeya idaacado fara badan oo ajnabi ah joornaal carabi wax ku qori jiray sida Quds al-Arabiya Sharq al-Awsat laakiin freelancer ma waxaan u ahaa freelancer 2 sano ku dhawaad shirkii waxaan ka fargareeyay Suudaanta ay ku wada hadlayeen Neefasha oo ay ku wada hadlayeen koonfurta Suudaan iyo Suudaan ay ku dhamaatay markii dambe heshiiskaasna uu dhalay in Suudaan koonfurta ay ka goosato si iyadoo heshiis lagu yahay muddo 2 sano ah BBC-da Carabigana freelancer u ahaa dadka aad wada shaqaysteen mihnada saxaafadda waxay ii sheegeen inaad ahayd nin qoraa ah intii aad ku jirtay sidaad ii sheegtay Somali Talk ayaad wax ku qortay oo muddo dheer faalada isniintii Fahad ka shaqaysay television laba television oo kale waad ii sheegtay qoraal dambe ma qortay oo aan ahayn xilligii saxaafadda ee aad halkaa ku qori jirtay cilmi baaris aan qoray markii aan saxaafadda ka wareegay TV inta aan soo baarista aadin ma waxaan wax ku qori jiray oo markii aan heshiis shaqada Jazeera bilaabay waa mamnuuc inaad qorto qoraal contractiga ku jirta qoraal ra'yigaaga ma qori kartid qoraalada aad kaydisay ee ku jira maanta baraha kaydka xilliga aad ku qortay Somali Talk oo soo qaadanay faalada isniin tahay waxa ku jira maqaalo siyaasadeed oo ka hadlayay xilligaas marxalada taagnaa waxa kamid ahayd soo galitaanka ciidanka Ethiopia ee Soomaaliya waxa kamid ahayd doorashadii dawladda ku meel gaarka ahayd ee Kenya lagu soo dhisay oo aad ahayd wariyaashii tabinay qoraaladaas maanta marka aad aragtid adoo siyaasadda soo galay meel mustawasar ka soo gaaray dadka Soomaaliyeed loogu hadalhayd ma yahay kamid noqday qoraalada marka dib u akhriyay maxaad dareentaa maanta
waxaa kaloo aan markaa kugu sii raadinayaa waan ku sii raacinayaa qoraalada kuwa Ethiopia ku saabsan maantay dawladda aad la shaqeynaysa xulafo dhow bay lahayd maxaa dareenta markaa waxaan dareemaa inaan aniga ahay wali wax isbedel ma dareemo Ethiopia shalay inay cadow ahayd maantana ay saaxiib iyo xulafo dhow la tahay waxa kala duwan marka aad kaliya fakarayso oo aad qol intaas ku soo xirto ra'yigaaga si xor u sheegaysid iyo marka aad masiir umadeed ka fikiraysid marka aad masiir umadeed ka fikiraysid waxyaabo fara badan ku xukumaya waxyaabo fara badan ku xiraya Ethiopia laftigeedana isbedel baa ka dhacay Ethiopiyadii oo markaas aan nocolka ahayn wadanka soo weerartay dhibaatada u geysatay xukunkeeda meesha waa ka baxay Ethiopia cusub baa timid marka mowduuc gaar hadda ay weydiinaysid ma ogi laakiin wax ra'yigayga iska bedelay ma jiro intii aad ku jirtay saxaafadda saaxiibo badan oo saxaafadeed lahayd oo Soomaali ajaanib kulli isku jirta siyaasadda ma la soo digargatay bas saaxiibadaad iyo saxaafadda halkii baad ku xirtay hadee dabcan kala shaqaan noqonay qaarkood oo shaqadoodii ku hareen anigana siyaasadii waxay ku qasbaysaa dad cusub baad la shaqeyn doontaa laakiin xiriirkoodii waa hayaa dadkii wanaagsanaa oo saaxiibka ahayn wali saaxiib baan nahay qaarkoodna siyaasadda ila soo galeen ba madaxda ugu sareysa oo dalka saxaafadda ay ka wada shaqeynayaan oo hebel aan ku dhigi karo Fahad wariye qoraal kaliya baahiye ayuu ahaa warbaahin caalami ayuu ka soo shaqeeyay maxay tahay sababta marka uu xilka yimid uu uga dhuntay warbaahintan aqaana marka qof warbaahinta yaqaana kuma cararo warbaahinta anuguna markaas dawladda afhayeen ma ahayn uma qaabilsaneen madaxtooyada afhayeen kama noqonin hay'adii aan ka shaqeynay afhayeen uma noqonin sanad iyo xoogaa madaxtooyada aan joogay wixii ka dambeeyana waxaan u wareegay hay'ad sasantiif ah hay'adaasna nature-keedu sida aan u shaqeynay baa sax ahayd warbaahintan aqaana maxaa la jeedaa warbaahinta aqoonta qofka u leh kuma degdego waa wax ummadda nacfigeedana qayb ka ah dhibaatana mararka qaar gaarsiin karta marka nature-kii hay'adihii aan ka shaqeeyay wali waqtiga ugu badnaa hay'adaha amniga aan ka shaqeeyay taas waxaan wali aaminsanahay qof kasta oo sirdoonka qaranka madax ka noqda inuu iska ilaaliyo warbaahinta is aruuriyo si xogtiisa iyo waxa uu ka shaqeynay oo asturaadaan adduunyadana saasay u badan iska ilaaliyo ma waxa loo jeedaa in la dagaalamo wallaahi haddii arikoorka hay'adda nabad intaan joogay baarto wariyaash lamaana dagaalamin oo soo dhaweynay saaxiib baan noqon xogta inaad ka xadideen ama laamaha amniga guud ee dawladda haato waliba aragtida adiga ay ka imaanaysa ayaa in badan la sheega oo aan ogaanay dad kala duwan oo xog raadiyo warbaahinta marar badan ka cabatay xogta helitaankeedii adigoo la rabay inaad wariyo tahay soo dhaweysatid saaxiib dhow ay kula noqdaan wariyaashu maadaama aad tiimka ka mid ahayd sidaad horey ugu sheegtay see u aragtaa eedaynta maas wallaahi kaftan waxaa jira aan sheego ah markii aan warbaahinta joogay waxa aan maqlo waxaan ugu dhibsanayay marka aan sirdoon maqlo waa ka carari jiray markii aan sirdoonkii soo aadayna saxaafadda waa ka cararnay waa run hadalkaas laakiin labada nature oo shaqada kala duwan wariyuhuna war buu raadiyaa sirdoonkuna sir buu qariyaa marka shaqadeeda waxay tahay waxay sir inaan qariyaba laakiin haddii rabaan inay war helaan dee wasaaradda warfaafinta jirta wasaaradda arrimaha dibadda jirta hay'ado ku shaqulay warka u doontaan baa jira laakiin doodda ah inaad adigu aliftay maskaxda ah in xogta dawladda la koobo oo warbaahinta laga ilaaliyo oo la faaf reebo ilaa herkee eedayntaas ka joogta maya waxaa la isku qasayaa inaan aniga warbaahinta iska gaabiyey shaqadii aan dalka u haya darteed iyo dawladdu inay warbaahinta iska gaabisay waa laba doodood oo kala duwan meeqa sano ayaadan weligaa waraysi ma bixisay waraysi waa qaadi jiray laakiin waraysi aan bixiyo maraan idaacad waraysi siiyo waa u maleynaya inay hal mar ahayd mana xusuusto sidan oo kale aan u joogno laakiin waraysi TV ah oo ama aniga la wareysanayo kana u horeeya الجزيرة انتهى السنة كشغلينيس قيبتا وراركا marka laga hadlayo isku dar jazeera dhan waa network wala lahaa jazeera shabakada الجزيرة waxa uu shaqeeyay taqriiban 12 sano oo xiriir ah waxaan ka soo bilaabay wariye waxaan ka soo bilaabay inaan noqdo madaxa xafiiska الجزيرة ee Soomaaliya haddana waxaan noqday madaxa xafiiska الجزيرة ee Geeska Afrika 7 sano ka bacdi ama 6 sano iyo bar ka bacdi waxaan u wareegay qayb kale oo الجزيرة kamid ah leeyahay markaas الجزيرة للدراسات oo qaybta cilmi baarista ah oo markii u horeysay la sameeyay in Afrika gaaraan bariga Afrika aan aniga wakiil uga ahaa cilmi baaris xoog leh baan sameyn jirnay qaarna aniga aan qori jiray qaarna aan dad u xilsaaran jiray هذا إلى heerkaas inaad noqoto qofka Afrika laga qaato macadka cilmi baarista ee الجزيرة
aaminaada heerkaa leh fahad muxuu ku kasbaday waxaan la mid ahay dadka kale aljaziira u shaqeynaya meel qof aljaziira dalacday keligii ma laakiin dalacin afrika soomaaliya marka laga hadlayo afrika laga sii hadlayo waa qofka keliya ee aljaziira ah ilaa mustawaha Soomaaliya waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliya oo aljaziira ugu u horeeyay shaqeeya qofkii ugu horeeyay oo aljaziira u shaqeeya anigu ahaa maybe la abaal mariyay shaqadeeda ay fiicneed wariye ilaa iyo cilmi baaro u shaqeeya TV-ga aljaziira ayaa noqotay kadib dawladda Qatar aad ayay kugu kalsoonaatay waxaana noqotay qofka ay kala hadasho malafkeeda ama arrimaheeda ku wajahan Soomaaliya warkaasi ma runba waa goorman ka hadlaysaa markaan wariyaha miyaa ka hadlaysaa mise markaan siyaasadda soo gasho wariyanimadaadii markaan ku koobno siyaasadda waanu aadi doonaa laakiin wariyanimadaadu waxaa noqotay geedka albaabka dawladda Qatar marka ay doonayso inay ka ogaato macluumaad kala duwan xaalka Soomaaliya iyadoo ay dawladuhu dhisan yihiin ama ku meel gaar ah ama dawlad joogto haate qofka la xiriiraya inuu fahmo qodob saameyntaas sidee fahad ku keen ani ma aqaan xogtaas meesha ka heshay dawladda Qatar aniga waxaan kala shaqeynayay aljaziira ee dawladda Qatar iska leh ayaga maalgelisa hadda koor baan diblomaasi weydiiyay waxaan ku iri inta wariysi aanan u shaqeeyo masaafada u jiro dawladda Mareykanka baan u jiray dawladda Qatar marka ciidan u shaqeynay aljaziira ahayd not dawladda Qatar aljaziira dawladda Qatar iska leh hadee CNN ba Mareykan ba iska leh marka qofka CNN u shaqeeyo dawladda Mareykanka u shaqeeya waxaan ma jiro xiriir fahad iyo dawladda Qatar intii wariyaha ahaa ka dhaxeeyay oo ay u soo martay arrimaha Soomaaliya iyadoo aan dawladdii Soomaaliya soo marin isaga soo wakiil hal qof oo mas'uul ah dawladda Qatar ka tirsan ilaa dawladda Soomaaliyeed aan mas'uul ka noqday lama kulmin weliga lama kulmin waxaan la kulmay waxay ahayd aljaziira iyo cidda madaxda ay ah xuduud kale oo ma gudbeenin waxaan u maleynay ayaga laftigoodana wariye oo ma baahneenba way haysteen mechanism kale wax ku raadsadaan fulay xantis ma mooga Fahad Yaasiin yaraantaadii ma ka mid noqotay dadkii ku tababartay macaskaraadka iyo xeriyihii military ee ay kooxaha islaamiyiinta Soomaaliya lahaayeen tababar nooca ah military ma kooda ma weligii ma galin macaskar xerowga marka ahayd xilliyadii 90aadkii oo Soomaaliya saxawaadku aad u soo kobceen ay doonayeen xukunka Soomaaliya in loo bedelo islaami inaad ka mid noqotay ma jirto qaybta aad weydiinayso waa mucaskar iyo tababar weligii ka mid noqonin xero military ma galin xero tababarna ma galin weligii ka dagaal ma galin markii wariyaha aad noqotay ama qoraal ha ahaato ama muuqaal ha ahaato ama imaadaba xilligii muqaawamada aad baa u firfircoonay dhiig badan baa u haysay dagaalkii socday ee Itoobiya looga soo horjeeday maxay ahayd waxa goonida xiriirka kugu riixay shaqada wariye aan ahayn qadiyad ahaan baan u rumaysnaa ciidanka Itoobiya dalka Soomaaliya yimid inay ka baxaan sida darteed xamaasad dadka ka badan baan u hayay marka wariynimadeyda waxa shaqadeeda ka mid ah inaan dalkayga ku difaaco marka xilligaas dalka xaqiiqada sheego markaas laakiin dalkaaga difaacis waxaad aaminsanaynahay taa xuduud dalkiisa la mid ah sida ninka dagaalamaya xoog dirir oo qori qaadanaya ma ahayn laakiin wariynimadeyda waxaan ugu adeegayay ummadda Soomaaliyeed ciidanka ajnabiga ee u yimid inay ka baxaan waana u taagnaa wayna dhamaatay markii aad wariyaha noqotay xiriirka kooxaha islaamiyiinta aad la sii yeelatay ilaa heerkee gaaray hada su'aasha sida u dhigaysa ma aqaano wariye waa inuu xiriir la yeeshaa cid kastoo niyo samayso si gaar ah kooxaha islaamiyiinta ee Soomaaliya islafiga ee dagaalamay ee aaminsanaa ma inta aniga wariyaha salafiyadu awood military ma lahayn marka aan wariyaha noqdo caalamiga noqday oo wariyaha aljaziira aan gaaray salafiyadu awood ma lahayn hadda maxkamadaha u jeedo ma ogi xilligii ay Soomaaliya al-Ittixaad al-Islaami ka hirgashay ee ay xoog lahayd ee ay gada meel ka mid ah maamulisay ee ay qow iyo boosax saldhig military ku lahayd ma ka mid noqotay al-Ittixaad al-Islaami su'aasha xoogaa sida u dhigaysa khalad yar baa ku jira xilligii ay isfaafinayeen ka mid noqotay mucaskaraadkaasi waxaas ma gashay mise Ittixaad ma ka mid noqotay laba su'aalood bay kala tahay marka taa ay weydiinayso Ittixaad ma ka mid su'aasha hore mucaskaraadka waad ka soo gudubnay waxaan ku weydiiyay ma ka mid noqotay al-Ittixaad al-Islaami الاتحاد الإسلامي waxaa ka guda weyn salafi horta manhajka salafiga ah waan ku barbaaray waan ku koray tarbiyadeedii qayb ka mid ah waaye kutubadii horeyso aan akhristay ayagay ahaayeen waan hadda ku yiri markaan aqliyeystay hooyada iyadoo xijaaban baan aqliyeystay marka ururka al-Ittixaad al-Islaami wuxuu ka mid ahaa ururadii ugu waaweynaa dalka jiray
jiilkii dhalinyarada ahaa ee markaas soo kacday badankoodu waxay ku biireen ururada islaamiga ah ama xeer bay u noqdeen aniga waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ku qanacday manhajka salafiga ah ku qanacday ururka al-Ittixaad Islaami xubin ka noqday darajooyin sarsare waliba ka gaaray waana ku faanaa ilaa xagee gaartay darajahan marka laga hadlayo al-Ittixaad Islaami nidaamkooda sidoo u dhisan yahay waa very complicated hadda ma ka gaaro inaan sharxo laakiin waxaan gaaray inaan noqdo waxa la yiraahdo ra'iis iqliim gobol inaan madax ka noqdo gobolkee ah gobolka madax ka noqdo ma raba hadda inaan sheego al-Ittixaad Islaami way burbureen hubkan way dhigeen waxayna noqdeen urur silmi ah oo si siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo waxbarashada siyaabo kala duwan u maamula waxyaabaha ugu waaweyn ee maamulana dhaqaalaha ayaa ka mid ah siyaasadana saameyn ku leeyahay ma jirtaa marka kadib al-Ittixaad Islaami inay ka wareegeen magaca al-Ictisaam bigtaag wa sunna ay aadeen ka mid noqotay xarakadan dambe xarakadan dambe lagama mid noqonaynin xubin ahaan يعني نين والبا oo اتحاد xubin ka noqday laakiin goolashu waxay leedahay golo fulineed ay leedahay maya yani waxaan u jeedaa qof kasta oo اتحاد xubin ka aha markii magaca la bedelay magacaas uu guuri marka aan ictisaam kuma biirin ee ururkii ba guurayba wuxuuna ka yimid urur tajamuc la yiraahdo oo qoyga Soomaaliya ka jiray iyo al-Ittixaad Islaami ba isku biiray labadooda markay isku biireen ba waxa ka dhashay magac cusub oo al-ictisaam la dhaho markaas ka bacay dad badan baa ka baxay oo urur kala furmay kooxo kala soo biiray ay kamid yihiin kooxaha maanta saxwaadka jooga Soomaaliya iyo Islaamiinta markaas adoo meel dhexe istaagtay labada dhinacna kuma dhinacyadii kala duwan dhinacna kuma biirin maya ma ay fahmin waxaan ku yiri aniga اتحاد baan ku biiray اتحاد iyo tajamuc baa isu yimid ictisaam bay la baxeen su'aasheedu waxa weeye ictisaam ma kamid tahay maanta mise kamid hadda su'aasha ma furnaba ururkii aan ka tirsanaa waa ictisaam noqday marka ma waad ku jirtaa hadda ma ku jirtaa iyo kuma jirtaa uma baahnid Fahad hiwaayadiisu waa maxay hiwaayadeedu waa akhris inaan wax akhriyo inaan wax barto mar walbana serious ahaado mar walba serious inaan ahaado mar walba jaad baan ahay nolosheeda oo dhan marka wax badan oo dadku ay ku mashquulaan mana jecli mana ku mashquulo heesaa ma dhageystaa maya ma dhageysto banooni mana cayaarin weligay allahay weliga banooni ma taabo weligay ma cayaarin ma dee jid ana marayo lugta ku dhufta ma garanayo laakiin banooni uma labisanin ma daawanin weligay ma daawanin shaleemana weligay ma gelin markaad rabto inaad chance haysatid oo nasatid intii siyaasadda aad ku jirtay maxaa ku nasataa waxba akhriyaa ama book baan akhriyaa ama article aan akhriyaa waxba akhriyaa waxaan ugu jeclahay ku raaxaysto waa akhris bookta aad akhridid kuwa ka hadlaya hogaaminta siyaasadda yak soo dheegataa waxyaabaha ugu badan oo aan akhriyay aniga waa taariikhda marka waliba taariikhda islaamka aan ugu jeclahay siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam taariikhda islaamka kusoo xigtay dowla al-Abbaasiya dowla al-Uthmaniya dowla al-Umayya tarbiyada ugu wanaagsan oo siyaasad laga dheehan karan waxaan u haystaa inay tahay taariikhda islaamka Fahad aad buu soo qariyay 10 sano ee la soo dhaafay marar dhif iyo naadir oo sawir laga helo mooyaan aad ay u adag tahay in la ogaado ama ay adkaatay sawiradiisa oo fasaxa iyo muuqaaladiisa iyo wareysidiisa in la arko maxaa ku dooratay inaad qarisid inaan banaanka u soo baxo muhiimad ay leedahay ma garanayn hadayna waan ku sheegay hay'adda sirdoonka aan shaqeynayay wali waan aaminsanahay qofka hadduu sirdoon yahay inuu is aruuriyo inta sirdoon ka noqon ka hor ayaad go'aamisay inaad dhammaan isqarisid Soomaa maya hadii aan dawladda waxaan u shaqeynayay 5 sano ka hor dawladdu ma shaqeynin ka hor laakiin markaaga hore sawirada iyo macluumaadkaaga way koobnaayeen Soomaa 10 sano ay ugu dambeeyay soo aniga wariyaha ahaayo 4 saac jaziira ka hadli jiray waa 4 saac wareysi qaadi jiray oo mar walba TV-ga live u soo gali jiray markaas ay isku qariyay baraha bulshada ma isticmaashaa socialka weligay ma furanin waliba fursad fiican aan uga faa'iideysan karo account Twitter oo aniga aan leeyahay ma jiro account social media oo dhan Facebook aan leeyahay ma jiro weligayna ma furanin wax kasta oo social media oo magacayga ku qoran oo munaasabad fiican aan uga faa'iideysan karo aniga mali weligayna ma furanin ku tala jirtaa hadda fulat ilaa hadda fikirkayga wuxuu ii sheegayaa inaan furanin waxaan aaminsanahay qofka maskaxdiisa inuu asaga maamusho maskaxdaadu hadii dad kale kula maamushaan waa khatar weyn sadarteed social media dadka waliba waxaan dhahaa ha ogolaanina in maskaxdiinu shirka noqoto guri furan oo cid walba soo gali karta inay noqoto Fahad dadka Soomaalida dad badan ayaa
jecel inuu u noqdo qof ay ku daydaan tusaale ahaan marka laga hadlayo qof saameyn badan ama dawlad ha ahaato ama ha ahaato sida uu u dhaqmayo iyo sida marar badan iyadoo aad loo dhaliilayo loo maagayo waxa badan leeyahay haddana qarsada oo aamusa maxay tahay waxa adeegsatid ee gaarka ee siyaasiyiinta kale ee Soomaalida maanta markii la dhalay Brito waxa laga siyaasiyiin ka jawaab adiga laakiin aamuska maxaa ka faa'iido wallahi dee waxa suuragal ah stiil khibradan saxaafadda oo leeyahay inay tahay in la iska daba qayqayli waxa ma soo kordhinayso waxa fiican hadalkaaga inuu munaasabad leeyahay waqti uu ku aadan yahay waqtigaasna uu nacfi u leeyahay qodobka labaad aamuskayga aniga ma ahayn waxa ani kaligay doortay shaqadeeda qayb ka ahayd marka nin sirdoon oo shirjir ay taagan waligeed lama arkin Soomaaliya ka dhici jirtay wax saxana ma ahayn in aan aniga idaacad soo istaago oo aan ka hadlana munaasabadeedii ma hayninba chief staff marka aan madaxtooyada afhayeen bay lahayd marka ma jirin sabab in aan soo istaago aan idaacadda ka hadlo waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo qaybta ku saabsan waa kuma Fahad Yaasin su'aasha ugu dambaysa aan rabaa inaan ku weydiiyo waxa waaye dad badan oo Soomaaliyeed hadday isku dayaan ama dhalinyaro in Fahad uu yahay qof ay hiigsanayaan maxaa kula tan lahay saddex shay baan kula tan lahaa marka koowaad hadafkooda iyo shaqadooda inay isla haato hadafkii u socdaan iyo shaqadooda inay isla haato midda labaad moralkooda damiirkooda iyo shaqadooduna inay isla haato midda saddexaad waalidkiisa inuu ka duceysto hadday nool yihiin su'aal kale ayaa igu soo laabatay waxaa lagu sheegaa nin run badan aamin ah ka go'naansho leh saxda walahi aniga waa sax ma dhihi karo laakiin waa dadaalaa intaan ku dadaali karo waa dadaalaa qofkii aan siyaasad ku ballanno inaan ilaaliyaan isku dayaa waqti badan geliyo xataa haddaan ogahay inaan ku khasaarayo waan raacaa ballantii aan ballan waa inay ugu dhacday marar fara badan tan dad ballan la galay siyaasad la galay anoo og in meeshaas inaanan ku guuleysanayn laakiin shakhsiyadeeda inay ii soo harto waa meesha aan ka dhawo marar badan siyaasadda iyo qofnimadaada yaysan iska kaa raacin qofnimadaada ha ku harto aad baad u mahadsantahay Fahad Yaasin qaybtii ku saabsanayd waa kuma Fahad Yaasin waan su'aalo badan ka weydiiyay haddaad iyo ogolaatid waxaan jeclahay inaan ka gudbo fadlan una gudbo qayb kale oo ah siyaasadda iyo soo beeritaankaaga su'aasha koobaad Fahad goormuu siyaasadda ku soo beeray wallahi waxaa jira theory la dhaho saxafiga iyo siyaasaddu waa daris adiga hadda siyaasadda masaafiyar baa u jirtaa marka wixii aan ka shaqeynayno warinaynay oo dhacdooyin siyaasadeed ahayd haddii intii siyaasadda Soomaaliya ay socotayna badankeed waa ku dhex jiray mar article baan ka qorayay mar waa warinayay mar siyaasiyiintan la joogay laakiin hadday tahay xil dawladeed goorma qabatay 2017 baan qabtay oo shaqo dawladeed soo galay markii kuugu horeysay oo si toos ah aad siyaasadda ula soo fargashid ama waxa Soomaaliga loo Soomaaliyeeyay saamilayda siyaasadeed goorma yahay waa doorashooyinkii u dambeeyay dalka 2012 September waxa la doortay Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed doorashadii ugu horeysay ee Muqdisho ka dhacday waxaan ogaaday macluumaadkuna ay xaqiijiyeen inaad ka mid ahayd dadkii Xasan Sheekh ku qancay inay soo dhisaan oo madaxweyne ka dhigaan oo ololahaas qayb ka noqotay sax miya ololihii madaxweyne Xasan Sheekh 2012 qayb baan ka ahaa lacag aad ka soo qaaday dawladda Qatar in Xasan Sheekh Maxamed la siiyay oo madaxweyne uu ku noqday 2012 ayaanu haynaa macluumaad la xiriira saxda isma inaad ku qancisay dawladda Qatar inay taageerto madaxweyne Xasan Sheekh si uu madaxweyne u noqdo ma wax xaqiiqa ma waxba marka wariyaan ba haba marka uma baahnayn ba lacag loo keenay waxaad kamid ahayd kooxda ololaha madaxweyne hadii ololaha waxaan uga noqon karaa maskax waxaan uga noqon karaa connection waxaan uga noqon karaa dadka inaan u qanciyo oo u sheekeeyo oo saaxiibo u abuuro laakiin warbixintaas wax faafay waa Soomaalida dhexdeeda ku faafay xaqiiqana kuma dhisna totally wax ka rug gabiyan war faafay oo aan salary raad lahayn waa ma jirto hadda waaba ku ireey war faafan salary raad lahayn waa mana u baahnayn ba 2015 waxaad iska diiday xil wasiirnimo waa lagu magacaabay ra'iisul wasaaraha ku soo magacaabay wasiir baa lagu soo magacaabay waa ka cudud daaratay ayaan baarlamaanka la gaaray maxaa u cudud
markaas dowladdii jirtay inta aanan wasiirka la ii magacaabin anoo waliba ku ixtiraamaya kuna qadarinaya inay wasiir ii magacaabeen wasiirka dekedaha la ii magacaabay xukuumaddii waxay ahayd ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid xilligaas qanaacadeeda siyaasiga ah iyo qanaacada dowladda markaas jirtay isma waafaqsanayn marka waxaan diidanaa wax damiirkayga iyo qalbigayga iyo qanaacadeeda aysan raalli ka ahayn inaan ka mid noqdo saasaan uga cudurdaartay si ixtiraam leh oo asturan baan uga cudurdaartay imaanshihii madaxweyne xasan sheekh ee 2012kii waxaa la bilowday kelmad la yiraahdo mulkiilaha dowladda dad badan waxay qabaan inaad ka mid ahayd mulkiilayaashii dowladdaas dadkii wax ka dhistay waliba kuwii foolaadka ahaa sidaan hore kuugu sheegayna dowlado kale cilaaqaadkood ama malafkooda hayay waliba xilligaas mas-uuliyaddaadu ay dowladdaas qadar dhankeeda ka timid iyo saameynteeda taas ma sax baa mise waa qalad والله ده أنا واحد كم ده دنياردي الصوماليات مدحونا حسن الشيخ لو كن لبيت طبعا قرب استاجي هو جان كيس أقبل سنة إنه ضلك هو جامي كشقيني دور كأن كلها نواك قتي لكن إن عاد مرضى مسقوتين يا شرتي وزيرني وذا السياسات كنت جدي سان حكتكو هايو منو شيء كرتها هل يلا بق وحيابها قناع على أنت كوغن عموي دي مركز دنبينا دولة دي كم نقطة مركز هنا دت كي دي سيئنات كم نقطة والله هدا ما دام أي تاي مرحلة لصور ضعفي سنة بدان أي كسو وريجين إن الهوس وجود دقة مرة لكن سكون بنكو إلى داي قناعة السياسي جاهد يضمير كيجا يحبك الدولة لماذا مركز الله ما ملاعبة كلا دونا سيدا درتد وحنكو سمي انسحاب وانكر أحبه مدحوين الفرماتشو أنت أوصل مدحوينها نغن حلقة حسن الشيخ حكومة دا ساد وزير كديدي inaad ra'iisul wasaare la raadisay oo la olo u gashay in la magacaabo ay suura gali weyday sida kadibna aad xukuumadda uga baxday taas ayaan haynaa maxaad ka leedahay markaas waxay ahayd turkii koo madaxweyne xasan sheekh la doortay dadkii madaxweynaha u dhawaa qofba qof buu ra'yi qabay oo talay ra'iisul wasaare madaxweynaha la siinayay qofba wuxuu qabay hebel ra'iisul wasaaraha ku haboon hebel baa ku haboon waa sax waa kamid ahaa dadkii aniga kaliya ma ahayn dhowr qof baan ahayn qabay in markaas ra'iisul wasaarihii hore buu ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub madaxweynuhuna kuma qancin xaq baan u leeyahay inuusan ku qancin laakiin ka bacdi waa la sii shaqeeyay halkaa kama soo bilaaban kala tegina siyaasiga waa laga yaabaa inay ka bilaabatay waxa la dhaho dhibic yar oo madow inay ka bilaabatay waa laga yaabaa laakiin ka bacdi waa wada shaqeynay waa ka xaala arrintaas waana wada shaqeynay adoo ku qanacsan in farmaajo anigana ra'yi un baan lahaa go'aanka isaga iska lahaa farmaajo markaas waad u ololaysay xaggee ka soo bilowdeen siyaasadahan isbarashadeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dadaan saaxiibanahay baa horta iskaga baray markii uu ra'iisul wasaaraha ahaana waraysi baan marka qaaday laakiin maanan sheekaysanin oo dad shakhsiyan u sheekaysta maana ahayn ka bacdi ragaan saaxiibanahay baa iskaga baray markaasaan sheekaysanayna afkaartiisa siyaasiga ah baan ku qancay oo aan dareemay aniga qanaacaadkayga iyo afkaartiisa siyaasiga inay iswaafaqsan yihiin dowladdiisii mulkiilaha dowladda mar kale soo laabatay markan haddii fahad 2012kii door xoogan uusan lahayn 2017 fahad soo laabtay farmaajona madaxweyne noqday oo uu ololeeyay 2012 wuxuu noqday mulkiilaha dowladda madaxweynayaal hore iyo siyaasiyiin badan iyo shacab Soomaaliyeed iyo warbaahin badan ereyga mulkiilaha dowladda aad lagu adeegsan ninka maskaxda dowladda oo ah warkiisa ku kala socoto waxa uu isagu yiraahdo kaliya ay shaqeeyaan aragtaas soo aragtaa bishaaro waxaan kuugu bishaareynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka fiiri walaalow laba arrimood waaye mowduucaas wax badan baan dad uga sheekeeyay laakiin maanta ugu horeysa amarina public aan uga sheekeyn doono horta ereyga mulkiilaha erey asluubaysan ma aha dowladda in la dhaho qof ba mulkiila ah erey يعني قرن نمذا يجريتان كأمضة يباحد ذلك وليه إن قفل الله شيء وحاجة ما هبونا وإري أرنتي كحوم هذا المسؤولين ووين استعمالين وإري يعني أنكو سفين كرواي كما هبونا إن ذلك يدك الدهيل بملكيلا لكن هو عذر
siyaasadda dalka muddo dheer soo hayay oo institutionadii in la qofeeyo dowladdii la qofeeyo oo la dhaho hebel waana wax nidaamka xisbiga ahaa iyo xisbiyadii siyaasadda oon hana qaadin baa qayb ka ah in marka waxa la shakhsiyeedeeyo taas waa midda labaad waxaa waaye maxaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ugu dhawaatay haddii ay weydiinaysa dee khalad maa inaan u dhawaado hogaamiye kasta qof baa saaxiib la ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abubakar baa dadka ugu dhawaa abubakar cumar bin khadaab baa dadka ugu dhawaa marka every leader hogaamiye kastoo dunida yimaada qof saaxiib la ah waa jiraa anigana sharafa ii tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu saaxiib iga dhigtay dadka ugu dhow iga dhigtay saaxiibtinimada marka laga tago howlaha dowladda Soomaaliya ilaa min bilow ilaa min dhamaad oo siyaasiga inaad go'aanka u dambeeya lahay go'aanka u dambeeya marnaba ma yeelan karin laakiin waxaan joogay institutionada lagu kariyo go'aanka marna jiif waxaan ahaa madaxa xafiiska madaxweynaha agaasimaha guud ee madaxtooyada shaqadiisa waa taqaana madaxweynaha qofka ugu dhawaa marna waxaan ahaa agaasimaha nabad sugidda ee sirdoonka qaranka waa qofka madaxweynaha shaqo ahaan ugu dhow oo amniga dalka iyo mustaqbalka dalka jaangoyntiisa tala kale marka Fahad Yaasiin inuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo talada iyo siyaasadda processka lagu karinayo qayb ka noqdo xilkayga keenay anuu qof ahaantayda ma keenin mulkiila ma ahayn dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shaqaalaan u ahaa dowladda aniga waana uga mahadcelinaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu siiyey laba fursadood oo wadanka ugu shaqeeyo laakiin awood badan leh haddii awoodda meesha ka raadinaysa ma aqaan ama dadku ka raadinaya waxaan ku idhi madaxweynuhu marka uu go'aan gaarayo institutionna dhariyaa lagu soo kariyaa go'aanka sirdoonku waa kuwa ugu muhiimsan adduunka oo dhan dhariyada marka la soo kariyo dhariyada mid ka mid ah madax ka ahaa sidaa darteed madaxweynaha markaan annaga u geynayna talo waxaan u geynaynaa wuxuu kala doorto tan iyo tan iyo tan baa jirta tan baa tii adiga munaasab kula qaado laakiin intaasoo optionaa jiraan warbixintaana jirta marka koofiyadii uu asagu ii geliyey ee ahayd shaqadu i siiyey baa waxay keenaysaa dhariyadii wax lagu karinaya mid ka mid aan ka shaqeeyo awooddaas ma la dhihi karaa Fahad wuxuu adeegsaday dad kala duwan oo meelo kala duwan jooga oo siyaabo kala duwan leh oo qaarkood ay dhibsadeen go'aamadii uu karinayay ee noqdeen ama uu soo jeediyay kuwa la qaatay oo dad Soomaaliyeed dib ay kala kulmeen dad Soomaaliyeed dib kala kulmay hadda hadal balaaran waaye laakiin go'aan kastoo la gaaro dad baa dhibsanaya dadkii wadanka dhibaya baa laga yaabaa inay dhibsanayaan dadkii wadanka dhibaatada ku haya dhibsanaya waxaa laga yaabaa go'aanadaas inaad adiga ahaan waad ku farxsan tahay inaad saad u qaadateen aad soo jeediseen madaxweynuhu qaatay wixii ka dhalanaya inaad saas aad u aragtaan maslaxad haddee waxa aan dalka u joognay waxay ahayd in wadanka loo adeego madaxweynuhuna waa ilaaliyaha dastuurka waa ilaaliyaha danaha qaranka cid kasta oo ku kaalmeynaysana waa inuu kaalmaysto oo institutionadii dowladda ah hay-adihii kala duwanaaha dowladda ah mudan aad baan kaaga mahadcelinaya waraysigaaga iyo waqtiga aadna siisay waxaan jeclaan inaan ku weydiiyo madaxweyne farmaajo markii uu guuleystay waxaad noqotay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka waa qofka ugu dhow sida aad hadda tilmaantay shaqo ahaan madaxweynaha horay waxaad u diiday wasiir xukuumadeed oo xasaanad leh oo baarlamaan ansixiyo oo shaqo qabta wasiir iyo agaasimo guudna way kala sareeyaan nidaamka dawliga marka laga hadlayo tii hore waxaad sheegtay inaad ka cudurdaaratay darajo ahaan waxaa sareysay wasiirka agaasimaha hoose maxaa kala dooratay waan ku sheegay waxaan ku iri qanaacadeeda siyaasiga ah iyo afkaartii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iswaafaqay markay iswaafaqeen marka wadanka inaan u shaqeeyana aan go'aansaday shaqadii uu ii dirsadaan qabanaya shaqadaas waana ii dirsaday agaasimaha guud ee madaxtooyada aan u noqdo waana ku qanacday waraal iyo nus baan ku ahaa waana ku faraxsanaa madaxweynahana waan uga mahadceliyaa mar walba waxaan rabaa inaan u gudbo intii xukunka aad joogteen nabad iyo nolol Fahadna uu ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada ama taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ama agaasima ku-xigeenka hay'adda saddex dowlad goboleed ayaa madaxdooda isbedel siyaasadeed ku yimid doorashooyin ka dhaceen madaxweynayaal la doortay madaxweynayaashaas waxaa la aaminsan yahay adiga Fahada ee maanta aan soo fadhino inaad lahayd door xoogan oo ku aadan sida xukunka ay ku yimaadeen masax baa arintaas qayb baan ka ahaa dowladda Soomaaliyeed markaas jirtay oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hogaaminayay aniguna aan mas'uuliyiinteedii ka mid ahaa doorashooyinka dalka ka dhacay ra'yi bay ku lahaayeen qof baa la fiicnaanayay qofkaasay taageerayeen qofkaas inuu guuleysto ka shaqeynayeen marka maamulkii markaa jiray shaqadii aan hayay qayb ka mid ah waa صح
inaad dowladgoboleed farageliseen madaxweyneyaal soo doorteen dowladdu aragti ka yeelatay horta faragelin ereyga la dhaho sax ma ahan anuu ajnabi ma nihin madaxda dalkaan ahayn laakiin marka qof madaxa lama dhaho waxba farageliyey waxaan u gudbayaa malafka shaqadaadii amniga ee NISA haddii aad ii ogolaato oo ay ka buuxaan dhacdooyin waaweyn oo dadka Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan aragtiyo uga haystaan hay'ad xogteedu kooban tahay macluumaadkeedu aad iyo aad dadka Soomaaliyeed xog badan uga hayn haddaad ii ogolaatid oo aad diyaar u tahay inaad si gabasho aan lahayn aad uga jawaabaysid su'aalaha aan ku weydiin doono waxaan diyaar u nahay malafka inaan furno soo dhawo ogosha soo dhawo mar haddaan waraysi ka ogolaado waa inaan ogolaado su'aalaha